Daniel Hernandez ama sidaad u taqaanaan 69 wuxuu dhashay 1996kii wuxuuna waxbarashada ka tagay isagoo ku jira fasalka 8aad wuxuuna bilaabay wadooyinka Mareykanka inuu ku iibiyo xashiishka iyo daraagiska wuxuuna ku soo biiray hees qaadista 2014kii wuxuuna soo saari jiray heeso laakiin cid dhageysan jirtay malahan oo markaasi taqaanay laakiin markuu uu bartay Shorty ama Treyway oo ka tirsan kooxda gaangiska ah Blood ayaa wuxuu ku fakiray kooxda Blood inuu la sameeyo hees Treyway isagana wuu ku raacay heestaasi ayaa noqotay mid dad badan ay ka helaan inkastoo heesta oo dhan ay ahayd mid kooxda Blood oo ciyaalka xaafadda ah ay cabireen wuxuuna ku helay heestaasi daawasho aad u badan 69 maadaama uu ka mid yahay kooxda Blood wuxuu dhexda ka galay dhibaatooyin waxayna isdagaaleen Chief Keef oo ah isagana rapper heesaha qaada sidoo kale heesaha soo saara wuxuuna ka tirsan yahay kooxaha laga cabsado ee gaangiska ah waxayna dhibaatada bilaabatay Lil Reese markuu uu bilaabay inuu wax ka sheego 69 Lil Reese waa mid ka mid ah saaxiibada Chief Keef 69 ayaana ku soo jawaabay cay iyo aflagaadeeyo Chief iyo saaxiibkiisa wuxuuna muuqaal la sameeyay xaaska Chief 69 isagoo ka soo duubay muuqaal waliba isagoo uu iibinayo dharka qaaliga ah iyo waxyaabo kale waxaasoo dhan wuxuu u sameeyay si uu uga xanaajo Chief Keef kadib social media dhexdiisa ayuu 69 ku sheegay inuu aadi doono aaga Chief Keef oo halis badan uu ku soo gali doono sawiro sidoo kale uu ku soo sameyn doono muuqaalo laakiin 69 qof ka rumaysataa ma jirin hadalkaasi 69 dadka ayuu ka yaabiyay markii uu aaday aaga Chief Keef uu iskaga soo duubay muuqaal arintaasina waxa ka carooday Chief Keef isla markiiba hore ayuu diyaarad ka soo raacay Chief Keef ayaa la kulmay rasaasay kaga timid kooxdii uu ka tirsanaa 69 isagoo waxba gaarin ayuu dib ugu laabtay meeshii uu ka yimid 69 ayaa iskugu yeeray magaca kiiga New York waqtiyo kadib waxay isku dhaceen 69 kooxdii uu ka mid ahaa iyagoo khiyaamo ku sameeyay sida xafladaha markuu ka helo 1 milyan ilaa 500 oo kun oo dollar kala bar iyaga ayaa qaadan jiray lacagtaasi taasatan saaxiibkiisa Treyway ayaana khiyaamay 69 sida xaqiiqda ah kama tirsano Tekashi kooxda Blood laakiin hadafkiisa ayaa ahaa in uu ku noqdo caan wuxuuna iska bariyeelay inuu ka mid yahay kooxdaasi waxaana arintaasi ka carooday Treyway wuxuuna isla markiiba qorsheeyay sidii loo dili lahaa 69 wuxuuna sheegay cidda isaga dil rabtaa inaysan awoodi karin maadaama uu hadda leeyahay ilaalo qaas ah kadib waxaa la xiray 69 isagoo lagu tuumay waxyaabo badan waxaana loo sheegay inuu gali doono xabsi booliiskii iyo kooxdii dambi baarista ayaa ku dhaheen haddii aad na caawiso wax badan ayaan kuu fududeyn doonaa oo xukunka ayaa lagu qafiifin doonaa waxaadna awoodaa markaasi inaad ka baxdo xabsiga wuxuuna bilaabay 69 inuu sheego magacyada iyo waxyaabo qarsoon oo ku saabsan kooxda gaangiska ah Blood waxaana gacanta lagu dhigay Treyway waxaana lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah sidoo kale kuwii kooxdaasi ka tirsanaa iyagana waxaa lagu xukumay 10 sano ilaa 15 sano oo xabsi ah Tekashi ayaana xabsiga laga soo daayay isagoo laga dhigay xabsi guri waxaana loo fasaxay inuu isticmaalo baraha bulshada waliba Instagram-ka wuxuu ka dhigay score aanay horey loo dhigin markuu ka soo galay Instagram-ka live waxaa live-kiisa soo galeen 3 milyan oo qof waana score isaga gaar u ah 69 waa mid ka mid ah heesayaasha ugu saameynta badan dunida waana qof dagaal badan waxayna horey isku soo dagaaleen Trippie Redd 50 Cent Snoop Dogg Meek Mill Lil Durk iyo kuwa kale oo badan waxaana lagu eedeeyay hadda ka hor kufsi sidoo kale waa mid u naxa inta badan dadka masaakiinta wuxuuna u qaybiyaa lacago waana qof ka duwan heesayaasha kale ee caalamka